Dr. Sheekh Abubakar Xasan Maalin oo ka mid ah mashaayikhda Soomaaliyeed ayaa waxa uu inagu soo booqday stuudiyaha koowaad ee Muqdisho Cable TV ee magaalada Muqdisho. Sheeko iyo isxog waraysi kadib Dr. Sheekh Abubakar Xasan Maalin oo culumta diiniga ah ka haysta shahaadada PhD-da ayaa iiga waramay xanuunka sida weyn faraha baan uga haya caalamka ee coronavirus. Su'aalo muhiim ah oo aad uga dhex guuxayay ummadda Soomaaliyeed ayuu sheekhu fursad ii siiyay inaan wax ka weydiiyo. Cudurka coronavirus waxa uu ka yimid China asal ahaan ma la dhihi karaa waa ciqaab alle ka timid maadaama ay China ciqaabeen muslimiinta halkaa ku sugan. Waxay ahayd su-aashii ugu horreysay aan hordhigay Sheekh Abubakar Xasan Maalin waxauna ku jawaabay. cudurkan horta viruskan corona sida la ogsoon yahayba waa sax wuxuu ka soo bilowday wadankan China. Wadankan China sida la ogsoon yahay wuxuu dhibaato ba'an uu ku hayaa dadka muslimiinta ah oo maaragtay runtii dhibaatooyin aan la qiyaasi karin uu ku sameeyay oo isugu jira dil iyo xabsi iyo jirdil iyo in qaarkood xataa uu maaragtay daakiradoodii iyo xasuustoodii uu ka dhaqay oo uu ka mayray oo qaarkood markii waraysi laga qaaday ay leeyihiin waxaan garan weynay xataa caruurteen markay naga hor yimaadeen waan ka oqon weynay dadka kale oo maaragtay cirbado uu ku daray daakiradoodii masaxayo oo yani ka masaxayo wax walba oo xasuusa marka dhibkaas horta waxa weeye waa jawaab ka mid ah jawaabaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka bixinayo maxaa yeelay iska dhaaf qof muslim ah oo xadka intaas la eg loo ciqaabo laakiin nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu inoo sheegay haweeney in loo ciqaabay oo naar ay ku gashay mukulaal ay guri ku xirtay oo ay ku xabistay oo wax maaragtay cabitaan ah iyo wax cuntaa iyadoon siinaynin ilaa sidii mukulaashii ay ku dhimatay nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii bukhaari uu warinayo wuxuu ku yidhi dakhalat imra'atun annaara fii hira haweeney ayaa waxay naar u gashay mukulaal waxaa jiray markii dowladdii sayidina cumar ibn alkhadaab uu hogaaminayey sanadkii 18 taariikha hijrigu markuu ahaa waxaa dhulka shaam ka dilaacay cudur la yidhaaho daacuun marka cudurka daacuunka ah waxaa ku dhintay ilaa 25,000 oo muslimiin ah oo heer shaam u badnaa ayaa ku geeriyooday waxaa mar lamida sidaas oo kale 69kii dowladdii uu hogaaminayey cabdullaahi ibnu zubayr iyo markii cabdilmelik bin marwan dagaaladu ay socdeen oo jabhaddii cabdilmelik bin marwan markaa uu hogaaminayey iyo cabdullahi ibnu zubayr ay dagaalamayeen iyagana waxaa dilaacay cudur kale oo isagana daacuun ayaa dilaacay kaasaa ka darnaa daacuunkii hore daacuunkan labaad waxaa loogu magac daray daacuunul jaarif kii hore dowladdii sayid cumar dhacana daacuun camwaas ayaa la dhihi jiray daacuunkan labaad ee marka daacuunul jaarif isagaa darnaa inta uu maaragtay dhibaato uu geystay maxaa yeelay sida taariikhyahanadu ay sheegayaan oo dahabi iyo ibnu kathiir labada sheekho ugu waaweyn oo culimmada taariikhda qora ay isku waafaqeen hal maalin keligii waxaa dhimanayay 70,000 oo qof daacuunka 69kii dilaacay 70,000 oo qofa maalin walba everyday dhimanayay markaan idhaaho coronaviruskan wax ka daran ayaa soo maray dunida oo daacuunul jaarif uu ka mid yahay tusaale ahaan anas bin maalik oo khaadimkii nabiga ahaa sala allahu calayh wasalam 80 caruur ah oo isagu uu dhalay ayaa uga geeriyooday 69kii daacuunkii jaarif ee dhacay nabiguna sala allahu calayh wasalam saxaabiga wuxuu ugu duceeyey maal badan owlaad fara badan iyo janno ayuu ugu duceeyey marka owlaaddiisa aad u badneed ilaa 100 caruuruu dhalay 80 waxay uga dhinteen daacuunul jaarif 80 caruur oo anas bin maalik uu dhalay daacuunkii 69ka dhacay marka way jireen xanuunada noocaas oo kale wax la mid sheekha oo ka waramayay salaanta loogu magac daray salaanta corona islaamku waxa uu ka qabo iyo in loo baahan yahay in qunuudka masaajidda la badiyo waxa uu yiri salaanta horta islaamka laba qaybood ayaa islaamku uu jideeyay midna waa mid afka ah oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadku afka ay iska salaamaan oo salaamtaasoo ka kooban duco iyo nabadgelyo iyo qofka maaragtay barako loogu duceeyo tan labaadna waxaa weeye waa salaanta musaafaxada iyo gacangelinta in maaragta la isgacan geliyo haddii marka xanuunkii wax jira uu yahay oo magaaladii ama wadankii uu soo galay dhakhaatiirtuna ay xaqiijiyeen in salaanta uu ku faafayo dee markaas waa inaan la salaamin oo la qaato loona hogaansamo
dhakhaatiirta taladooda afka laysku salaamo laakiin lug in laysku salaamo ama garab laysku salaamo waxaasi sooma aroorin waa anshaxumo ama dhaqan gaalo wey qofka muslimka ahi waa inuu qofka afka uu ka salaamo assalaamu calaykum waraxmat ullahi yidhaaho daruura hadday timaado oo cudurkan la xaqiijiyey inuu taabashadii uu ku faafayana waa inuu salaamta islaamka afka uu ku gaabsado laakiin lug iyo garab waxaasi waa dhaqan gaalo in laysku salaamo lama ogola waxa weye horta qunuudka wuxuu u qaybsamaa laba qaybood qunuud raatib iyo qunuud naazila labadaas ayaa islaamku qunuudka u qaybiyey qunuudka raatibka ahi waa qunuudka salaada subxiga ragcada labaad lagu qunuudo kaasi waa raatibo waa joogto ama musiiba ha timaado ama musiiba yaysan imanin mar walbaba yani waa mashruuc in maaragtahay salaada subxiga ragcada labaad lagu qunuudo calaa madhab alimaam shaafici raximah اllahu tacaala iyo asxaab badan ee ka mida ay ku tageen qunuudka labaadna waxaa la yidhaha qunuutu naazila qunuutu naazila marka islaamku wuxuu u jideeyey abaaruhu markay dhacaan cudurada noocan oo kale markay faafaan in qunuudka la badiyo islaamku wuu jideeyey nabiguna wuu ka dardaarmay salى اllahu wslam wbaarak caleyh waficlanna nabigu wuu sameeyey in badan oo mar abaaro ay dhaceen mar asxaab laga laayey oo geeridu ay badatay wuu sameeyey nabigu salى اllahu alيه wasalam qunuudkan marka waanu dardaarmaynaa in qunuudka aimada masaajidu ay badiyaan maxaa yeelay waa qeyb ka mida magangelka ilaahay la magangelayo ilaahayna wuxuu yihi fafiruu ilى اllah xagga ilaahay u carara marka mar walbaba qofka xagga ilaahay u carara ayaa guulaysanaya mar walbaba marka dabaylaha iyo qabowga uu nabigu amray salى اllahu alيه wasalam in maaragta guryaha lagu tukado in aadaanka lagu daro waxaad moodaa cudurkanna inuu ka daran yahay dabaylihii xilligaas jiray ama maaragtahay qabowgii uu nabigu dhahayey muadinku ha yidhaaho alaa sallu fii rixaalikum cudurkana ka daran marka haddii cudurkii la xaqiijiyo waa lagu dari karaa aadaanka guryihiina ku tukada gabagabadii doctor sheekh abubakar xasan maalin waxa uu ummadda kula dardaarmay inay rabbi tala saartaan oo ay badiyaan akhriska qur-aanka iyo ducooyinka uu nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee ku ducaysan jiray waxa weeye cabdifataxow ducada horta aniga aan farayo waxaa ugu muhiimsan ducadii nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ku ducaysan jiray cuduradan oo kale marka ay yimaadaan iyo mar walbaba uu nabigu sala allahu calayh wasalam uu magan geli jiray ducadaas oo imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinayo ducadaasi waxay ahayd allaahuma inii acuudu bika min albarasi wاljunuuni wاljudaam wasayi alasqaam taasoo markii af soomaali loo bedelo ay tahay ilaah waxaan kaa magan gelahayaa xanuunka baraska iyo juudaamka iyo waalida iyo cudur walba oo xun ee bini aadamka ku dhaca ayaan kaa magan gelayaa ayuu nabigu salى اllahu alيه wasalam uu dhihi jiray marka ducadaas ayaan dardaarmi in mar walbaba maaragta lagu ducaysto waxaa kaloo sidaas oo kale aan dardaarmi in suuraة اlfaatixa 7 maraad 7 goor uu qofku maaragtahay isaguna isku akriyo owlaadda aan maaragta xifdisanayna iyo ahalka aan xifdisanayn ayagana lagu akriyo oo guryaha lagu akriyo suuraة اlfaatixa maxaa yeele xadiiskii abi saciid اlkhudri wuxuu tilmaamahayay nin boqor oo xanuunsanaya in saxaabiga iyo saxaabo la socotay ay faatixada ay ku akriyeen weliba shuraaxulxadiis qaybo ka mida waxay qorayaan 7 faatixa inuu ahaa saxaabigaasi waxa uu akriyey nebiguna salى اllahu wasalam wabaaraka calayh abi saciid اlkhudri wuxuu ku yidhi wamaa adraaka annaha ruqya maxaa ku ogeysiiyey faatixadu in dadka lagu tufo marka faatixadaasna ayadana ha la akriyo qur-aankana aad ha loo akhristo ducadana ha la badiyo